anoo qarankaygii hagran anoo dembi ka gelin anoo wax alla iyo waxa ahaatee aan ku sameeyay aanay jirin oo u helan inaan u shaqeeyo in maanta laygu cunsuradeeyo qabiil baa tahay iyo reer hebel baa tahay iyo garxajis baa tahay maanta inay meesha timaado oo waxaana filayn oo waxaana Somaliland haba yaraatay kaba filayn ad waxay ku dhahdeen waa la isbaranayaa kooxdu waa anaga madaxa ma garxajis baa tahay saacadihii la soo dhaafay daawadayaal waxaa baraha bulshada si weyn looga hadalhayay sheekada fanaanka Cumar Xarago oo la soo shaqeeyay kooxda gaashaan ee ciidanka qaranka ee Somaliland haddaba fanaanka ayaa hadda nala jooga anagoo wax ka weydiin doona bal sheekadiisa iyo siday u jirto walaalo aad iyo aad bad maasantiin Sab TV maanta aniga soo booqday waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin iga dhacday kooxda militariga ee gaashaan oo muddo 2 goor ah soo noqnoqto muddo 2 goor ay ku dhacday haddaan in yar dib u noqdo aan anigu dib ugu yar noqdo mawduucan ka hadlayo aan dib ugu yar noqdo waxaan doonayaa inaan ka hadlo inaan anigu Somaliland gashaday tacab badan xagga fan ahaan anigu waxaan 2012 ku jiray unuga wadaniyada Somaliland oo ahaa unug ka shaqeeya inta badan wadaniyada oo la aasaasay xilligii Somaliland qarxid ku dhacay 2008 ardaydii ka baxday jaamacad xilliga ay aasaaseen ayaan anigu fan ahaan ku biiray oo qaybta wacyigelinta ee wadaniyada si frontier aan ugu shaqeynayay muddada inta leeg anigu qaranka lacagna kama qaadan xoolana kama doonayn si frontier aan ku shaqeynayay hasa ahaatee waxa dhacday arrin aan u qaadan waayay oo maanta 30 sano kadib Somaliland aan islahayn way ka dhacaysaa ayaa iga dhacday maalintii shalay ahayd arrintaas waxa sanadkii hore 2021 aakhirkiisii la soo hadlay ninka kooxda haysta Lord Axmed Wacays wuxuu igu yiri waxaad ku doonaysaa kooxda kaalay kooxda markii aan mid anigu muddo bilaban la shaqeeyay bilban heesii la duubayay barnaamijka waxa la sii diyaariyaa 3 bilood ka hor barnaamijkan ciidanka xuska ciidanka oo la qabto February bisha November ayaa la sii bilaabaa ilaa maxay hayday January uu socdaa barnaamijku oo traininka iyo promooyinka iyo si heesaha la isla qabsado oo riwaayada iyo wax oo dhan loo tijaabiyo ayaa saaloo si shaqeeya dabeedna muddo bilan markaan la shaqeynayay heesi la xafiday waqti geliyay wiigii khamiista iyo jimcaha mooy inta kale baan imanayay ayaa wax dhacday maalmaha kamida anigoo shaqadii ku jira in ninka ka darajada sareeyo gaashaan la oo gurey la meesha jooga run ahaantiina uu muuqdo shakhsi aan fanka waxba ka aqoon oo qofka inta badan loo dhiibayo halka kaalintaas oo kale oo qof fanka yaqaana qofka fanaanka heesi kare fanaaniinta inta badan isku dhex jiraan qaar baa cod xun qaar baa cod wanaagsan qaar baa leef u heesa qaar baa leef u heesi karin waxa la doonayaa qof waxa soo dhan yaqaana inuu meesha qabto ninkaas ay yeedho wuxuu yiri niyow waa iska tagaysaa waxa ku niyow adigu yimaad yeedhin kooxdana ninkaas ay keenay dee shaqeeyo meelin maxaad weydiinaysaa wuxuu yiri niyow waa halkaas ka baxaysaa dabeedna waxaan isla iska tagin ninkii ku yeeray maadaama nin fanaana tahay fankuna uu yahay wacyigelin oo aan qarankayga u shaqeynayay qarankayga doonayay inaan anigu uga faa'iideeyo codkayga waliba fanaan qudhamay waxna hal abuur sidoo kale laxamadan sameeyaa dadna markaan ninkii baa la hadlay waxaan ku yiri niyow sidaas jirta wuxuu yiri Umar qalad yar baa dhacay ana kula soo hadlay iska tag waan iska baxay adu sheekadii waan iska ilaabay muddo ka soo wareegtay bishii 10aad ee sanadkan haddana ayuu ninkii la soo hadlay wuxuu yiri niyow kooxdii waxa ku niyow kooxda soddonkii sanadkii hore sida sharaf darada ay la dhaqmay ninkii gidee shaqeynayay kooxdii kala shaqeynayay tiraadeen iska tag dabeedna wuxuu yiri niyow waan dhamaynaynaa hawshaas kaalay waa nimid waxaan ninka shaqeynayay muddo 3 weeks haddana qaldanayn ayaan shaqeynayay oo kooxdii la shaqeynayay oo heesi la xafiday oo oran karaa in heesaha sanad gurida laga qaadayo halkan waan dhakadan ka xafisan waan haya ma garatay dabeedna waxa dhacday maalmaha kamid ah oo shaqada ku jireen la yeeray in labadan inta ii yeereen meel iyago fadhiya ugu dhahdeen halkan kaalay si goonay la hadleen qolama tahay waxa ku niyo anu fanaana baanay fanaankii qoladuna isma gasho dabeedna ad waxay ugu dhahdeen waa la isbaranayaa kooxdu waa anaga madaxa ma garxajis baatay anu garxajis iyo dadka kala deynay Somaliland isku mid yihiin beelaha deegaa dhamaantood ayun baan aaminsanay haddaanu fan nahayna waan ka sii duwanno fanku inuu qabiil sheego ama qabiil lagu soo qaado ama qabiil ku suntanaado waa wax mustaxiil ah dabeedna waxa ku qoladaas aan ahaa maalin markii ka soo wareegtay oo shalay tola ahayd anigoo shaqadii sidii caadada shaqadii ku wata oo heesi xafidayna oo kooxdii dhex fadhiyo ayaa kooxda waxa ku jira ninka loo Umar leeyahay
aniga Cumar Xarago nin la Cumar Shabeel baa jira Cumar Shabeel markaa cilmiga Ilaahay uu isag fadhin anagoo Cumar isag fadhina ayuu la yiri labadiin halkaas oo kala fadhiisteen marka anigu heesiyo wixii baan xafidaynaa waanu qaylinaynayo barobadii waa socota isma maqlayo dadna Cumar waan maqlayo sakuro Cumar Shabeel ma laada lagu hadlay laha Cumar baa kacay dadna waxa Cumar iska fadhiiso waa Cumarka kale kale dabadna markaan uu yimi ninkii gaashaan laha uu kacay marka waxaan leeyahay mala qaladkii sanadkii hore dhacay ee daligu leeyimi ay labadii maadaama isla fadhiyeen imika ay saxayaan marka dabadna marka soo fadhiistay waxay yiraahdeen wuxuu yiri niyow kooxdii waxaan doonaynay inaan ku qaadano laakiin waxa dhacday maxay heetay boosasku way buuxsameen waa sidan waxaan ku dhaanu waan shaqeynay sanadkii horena adiga yeeray sanadka maanta ana adaa ii yeeray haddaana qaadanayno wax kale jirin maxaad intaan shaqeynayo oo Cumar oo shaqada shaqeynay ila qofka markaan doonayn inuu ku shaqeeyo iga joog baa la dhahdaa marna 3 week baan shaqeeyay marna bil baan shaqeeyay marka qaladka inta lag bay ugu dhacay waxaan ku niyow ma jirto malaa shaqo buuxda iyo shaqada booskayga waan haystaa boosashigayga waan haystaa fanaan gacan culus ama xirfadiisu reebaysana meehi oo xirfad la'aan hayso fanaaninta live ku haysta ku jira inta badan live ku haysta ayaan ku jira kamanka iyo muusigaba ku haysta iyo live lagu tumayo marka waxaan ku niyow xirfadayda faneed mid hooliidatana maaha dad walaalayd macallimka wajibi ahaan taasi waxaad leedahay in deewaad igshanay qabiil iyo reer weydiinayay nin daanta ka soo toosay waa iska tag sidaas shalay ku dhacday runtii aad iyo aad baan uga xumaaday markaan meesha ka soo baxay anigu nin halabuura baan heesaa qudhameehi eriyay igu soo dhacay intii aan miiska saraakiisha iyo bridge intii isu jiraan wadaagtay eriyada igu soo dhacay waxaan doonayaa inaan hees ka dhigo oo dareenkaygii igu jiray markaa shucubteedii wixii ka guuxayay anoo qarankaygii hagran anoo dambi ka gelin anoo wax alla iyo waxa ahaatee aan ku sameeyay aanay jirin oo u heelan inaan u shaqeeyo in maanta la igu cunsuradeeyo qabiil baa tahay iyo reer hebel baa tahay iyo garxajis baa tahay maanta inay meesha timaado waxaana filayn waxaana Somaliland haba yaraatay kaba filayn Cumar waa hagaag saraakiisha kooxda ka madaxda hadda waxaad ku eedeynaysaa in qabiilkaaga dartii kooxda lagaaga saaray maxaa xoga ama cadeyna ee kale ee ku soo baxday ku ogaatay in qabiilkaaga dartii lagaaga saaray kooxda gaashaan ee ciidanka qaranka Soomaaliya waxa xogay cadeyna ee ii soo baxday wuxuu yiri maxaa isku beegay buu yiri dhageyso shalay daraad baa liigu yiri qolamaatay maanta iyadoo wax kiisoo aan jirin waxa laga bixi karo kooxa qofka laga gari karo oo dareemi karnaa waa qof xifadiisa faneed ama ay reebtay ama fanaan hayno mihnada qasbaya ama qof dambi gala oo dambi ku soo yeedayso aan garanaysa la qaadan karin marka anigu labada midna mihi waa dareemi kartaa marka shalayna wax lagu qolamaatay maantana wax sabab oo adoo tag lagu yira oo macquula ma jirto muddada labada goor ah ee la soo shaqeysay kooxda gaashaan wax xuquuq ama ka heshay xuquuqdaad ku lahayd may marna kama helin labada goor been shaqeynay markasta aan dhaweeyay qaadanayay wax laga yaabaa inay si socodna waxaan galaa anigu waa dheer $3 iga baxdo soo socodna $3 iga baxdo muddooyinkii ugu dambeeyay ayay gudaha Somaliland sii kordhayeen kiisaska noocan oo kala ah ee ah shaqaalaha tacadiyada tirsanaya shuruucda oo yar dadka madaxda ah oo awoodo dheeraad ah isticmaala iyo sidoo kale arrimo isir ku salaysan ayaa inta badan sabab u ah kiisaskan